biyaha waa baahida ugu weyn ee ka jirta magaalada Hargeysa waxaana magaaladu sanadkii 1970kii la dhisay nidaamkeeda biyaha oo dadku ay ahaayeen 180,000 oo qof oo loogu talagalay nidaamkaasi in biyo ay gaarsiiso laakiin marka la eega hadda dadka magaalada waxa hay'adda qaramada midoobe ee UN Habitat ay ku qiyaastay in ay ku nool yihiin 750,000 oo qof dhismaha nidaam cusub oo biyaha magaalada markaasi kor loogu kordhinayo ayaa socda balse waa mid gaabisa sanado ayayna qaadanaysaa in mashruucan la soo gabagabeeyo su'aashiisa waxay tahay marka uu dhamaado mashruucan ma la helayaa kayd biyo oo ku filan magaalada Cusmaan Cabdi Xasan oo dhawaan Hargeysa tagay ayaa warbixintan ka soo diray waa sida in badan oo Hargeysa ku nool ay biyaha ku helaan gaari dameeradan waxay biyaha u dhaamiyaan xaafadaha aan awoodin in ay booyadaha biyo u shubaan tubooyinka biyaha magaalada ee shaqeeya ma wada gaaraan magaalada oo dhan xaafadaha ay ku jiraan tubooyinkaasna xilli kasta biyo ma helaan magaalada aad ayay u fiday sida ay biyaha ku heshana waa hab muddo dheer soo jiray waxaa la dhisay horraantii 70meeyadii 2 tubo oo muddo shaqaynayay ayay biyaha ku gaaraan magaalada guryahan dhawaan la dhisay waxay leeyihiin haamo ay ku kaydsadaan biyaha oo ay booyadaha u keenaan qaarkood guryahan booyadaha ma gaari karaan wadooyinka oo ciriiri ah darteed gaari dameerada ayaa gaarsiiya biyaha caqabadaha ugu weyn ee jira waxa kamid ah biyaha Hargeysa saynu ka warhayno way biyo la'dahay oo waa magaalo 90% aan biyo helin inta yar biyaha heshaana waxay ku heshaa 3 cisho markay weydo biyaha ay maalin ay u heshaa maalin marka runtii Hargeysa way biyo la'dahay waxyaabahaas ugu badan waxyaabaha ama qasabad in waxa la dhaansadaa booyadii baa la dhaansadaa marka systemkii biyaha loo helayay ayaa runtii aad iyo aad dadka ugu adag guriga qaar waxa laga inay booyadiiba gali karinba oo ay caqabad ku noqotay inay booyadihi galaan marka biyo la'aanta magaaladu ay biyo la'dahay guriga waxaan ku haynaa 4 daameed oo magaalada ayaan ku haynaa xilliyada roobka magaalada biyo badan ayaa dhex mara kuwaasi oo ku filan inay baahida magaalada daboolaan ma jirto hab lagu celiyo biyahan daadka ah waxayna ku dhamaadaan meel cidla ah si wax looga qabto dhibaatada biyaha magaalada waxay mas'uuliyiintu dhisayaan qasabado cusub oo ka baaxad weyn kuwa hadda jira ee magaalada biyaha gaarsiiya ka jirta amba baahiya ugu weyn Hargeysa ka jirta waxa koow ka amba laba ka waa baahida biyo nadiif ah dadku inay helaan runtii taayado laga duulayo hay'adaha caalamiga ee la shaqeeya ka shaqeeya wadanka يعني waxay dhamaantood ka hawl galeen iyagoo kaashanaya wakaalada biyaha Hargeysa iyo dawladda Soomaaliland sidii loo balaarin lahaa nidaamka biyaha magaalada Hargeysa marka waxa socota runtii mashaariic marka loo eegayo Soomaaliland iyo guud ahaan Hargeysaba runtii waa weyn mashaariicdaas ay kala maalgeliyeen midowga Yurub oo ah mashruuc biyaha lagu balaarinayo systemka biyaha jira lagu balaarinayo habka ay magaalada biyaha ku gaaraan waa mid hore oo aan dabooli karin baahida hadda jirta balse mashruucan ay hadda dhismihiisu socdo ayaa la filayaa in uu taa daboolo inkastoo ay muddo qaadanayso injineerada waxa culays ka haystaa in ay qodaan dhagaxan adag waxayna la kulmaan mashiinada ay ku qodayaan in ay jabaan dhulka oo adag ma haystaan walxaha lagu qarxiyo meelaha adag si hawshu u fududaato qiyaasaha qaar waxay sheegayaan in dhisidda habkan cusub ee biyaha dhammaystirkiisu qaadanayso dhowr sano si kasta ha ahaato marka uu mashruucan dhamaado cidna ma oga kaydka biyaha dabiiciga ee dhulka ku jira si magaalada u hesho biyo joogto ah oo ku filan inta guri kasta ee magaalada ku yaala helayo biyaha qasabadaha gaari dameerada iyo booyadaha ayaa ah sida ugu habboon ee biyo lagu heli karo Cusmaan Cabdi Xasan BBC Hargeysa haddaba su'aashu waxay tahay sidee biyo ku filan Hargeysa loogu heli karaa waxa qadka si toos ah magaalada Hargeysa ugu jira Cabdirasaaq Axmed injineer Cabdirasaaq Axmed Gaas oo ka tirsan guddiga biyo gelinta su'aashaas dan ku weydiiyo sidee loogu heli karaa Cabdirasaaq biyo ku filan magaalada farxaano waxaan wadnay dadaalo aan bariyahanba intan 6 sano ugu dambeysay aan mashruuca biyo balaarinta ee magaalada Hargeysa aan ku keeninay biyaha sida daraadeed runtii waxay naga qaadatay hawl badan karti badan adduun badan oo aan gelinay mashaariicdaasi imika waxaan ugu talagalnay mashruucan oo aan filayo inuu sanadkan awalkiisa soo dhamaado waa mashruuca biyo balaarinta ee Geedeeble ilaa Hargeysa oo aan soo dhigayno dhuumaha aad soo bandhigteen in uu gaarsiiyo 20,000 oo mitir cube
maalintii taasi oo ku filnaan doonta magaalada Hargeysa waxa daba socda mashruuc labaad oo ah in aqal kasta oo Hargeysa ay leedahay beebku la hordhigo oo laga guuro dhammaan qasabadihii hore injineer Cabdirasaaq waxaan rabaa markaan ku weydiiyo waa lacag fara badan inta mashruuca ku baxaysa waxaas xagee laga keenayaa oo magaalada lagu biyo gelinayo runtii waxa ina maalgeliyay wadamada si EU-da oo isku dhameystiran KfW oo imka soo gashay oo bangi Jarmala oo isaguna bixiyay imka dhowr iyo 30 milyan oo dollar oo magaalada dhexdeeda lagu qaybin doono biyaha mashruucaasina uu noqon doono 5 sano oo soo socda mashruuc imka laga shaqeyn doono oo qasabada aqalada lagu gelin doono hawshan muddo badan bay soo socotay magaalada Hargeysana sidii aan warbixinta ku sheegaynay way ballaaratay dadkeedu way ballaarteen maxay mashruucyadii hore dhan u hirgeli waayeen oo ilaa waqtigan saan loo soo gaaray runtii horta waxa ka imanaysa in dhowr meelood la taabto waxa koow ka noqonaysa oo anigu shakhsiyan aaminsanahay in aanay dawladdu wali la iman vision adag ama dad adag oo keeni kara karti ku keeni kara inay daba galaan dadka in siinaya lacagaha nagu caawinaya deetana ay oran karaan war muddadii aad qabsateen kolba waa la kordhinayaa maxaa aad u kordhinaysaane aad mashaariicda noogu dhameystiri laadiin waad garanaysaa iyo donorku markuu lacag bixiyo consultant baa soo raaca consultantkaas waan gartay hadii jeer mashaariicda dib u dhiga injineer Cabdirasaaq waqti ma qaban kartaa maxaa caawa laga qorayaa oo aad dadka Hargeysa u sheegi kartaa goorma biyo buuxa laga helayaa waqti qabo haddii ay dawladdu kartidii la rabay ay la timaado sanad gudaheed Hargeysa biyo waa heli kartaa baan aaminsanahay aad iyo aad baad u mahadsantahay injineer Cabdirasaaq oo ka tirsan guddiga barnaamijkaasi sameynayay ee isku dabaridaya biyo gelinta magaalada Hargeysa